Assalaamu calaykum asxaabteyda meel kasta oo aad joogtiin kusoo dhawaada janalka Umu Axlaam channel. Maasha Allah aad ayaan idin salaamayaa walaalihii soo dhawaada Umu Axlaam channel kusoo dhawaada asxaabteyda. Maasha Allah waan idin mashquul maalmahan iska mashquul ayaa jiray. Hadda ayaan isku soo laabanay halkan waxaan ku haystaa baharaadkii oo waxaan ku dhahaa bariiskii wax ku darsan lahay salarkii basal gaduudii sabiibkii baradhadii waatana baradhadeydii halkan waxaa iigu jiro xawaajiyaashii filfishii qorfii heelkii wixii dhan oo dhammaystiran baradhadina waad aragteen. Marka koowaad horta waxaan ka bilaabi doonaa hilibka. Halkan waxaan ku haystaa hilib buskeeti ah oo aan saliid lagu dubeynin oo digsiga lagu uumateynayo insha Allah biidnillaahi kariim. Hadduu Ilaahay yiraahdo digsiga bisa ku uumateynaysaa haddii qof waayeeladoo kaleeto dadka aana jeclayn hilibka adag qudaarta aan cabitaanka ka sameyn lahay waa cambihii iyo batiiqi kama maqna meesha. Wixii dhan meesha ayay igu diyaarsan yihiin insha Allah. waa ujeedin dhamaantood qudaartii oo dhammaystiran. Waxaa yaala basashii xawaajiyaashii salarkii baradhadii batiiqi. Halkan waxaan ku haystaa digsiga furan kuukarka waxaan kusoo shubi doonaa basashii. Marka koowaad basasha waa inay wax yar gadoodato markaas aad ayay saliid kugu carfaysaa. Waxaan kusoo ridi doonaa hilibkeyga wuu balbalaaran yahay waa ujeedaa waa buskeetigii oo la huurinayo. haddaa rabtidna saliidda waa ku duba kartaa sidaa jeceshahay qof walba jooskeeda laakiin sidaan ayuu ku fiican yahay aad ayuu kugu jilcanaanayaa hilibkaada. haddii qof waayeeloo kale cunayso haddii caruur cunayso kan ayaa aad u jilcan. waxaan ku daraayo waa wax yar oo haruud ah. Marka koowaad xawaajiga isku dardarka ahaa wax yaroo kabsar iyo toon shiidan ah 4 xabo filfil ah oo aan badnayn filfil nool waaye mid shiidan gadaal ayaan ugu dari doonaa insha Allah. waa kana soo dhammaystiray saa ujeedin hilibka wax yaraa ka dhinaa waa kusoo dhammaystirayaa. halkan waxaan ku dalacayaa bariiskii. marka koowaad basal heel qorfihii qudaartii oo dhan markaas isku soo qastid waxaan ku dari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo maraq digaag ku daray wax yar oo bariis macaan ah toon iyo kabsartii waa ka isku soo walaaqi doonaa si fiican isku dhex geli lagama sheekay karo walaa caraftiisa. waa kana bariiska aan kusoo shiilaynaa. bariis iyo anaga maxaana kala haysto malaha Soomaalida bariiska ay aad u jeceshahay meel walba inaan beer bariis ka abuurano waaye. halkan waxaan ku haystaa baradhadii jibsiga ayaan kusoo dubayaa. jibsiga aad ha u qasin wax yar saliid uu kaadi asaa qaleel iska noqon doona. waa kana jibsigeennii qadadeena dhan oo dhammaystiran markii aan soo diyaarino insha Allah. asxaabteyda meel kastoo aad joogtiin sheerta commentiga leegta yaa la iska baqiilin dhacdhac lagu soo siiyo. waa walaashiin Umu Axlaam channel. baradhada waa kasaa
wax yar tiish iyo baastamir aa u dhiganaysaa insha Allah. Tiishka ha ku shubin baradhada intay saliidda saaidka leedahay. Saxan saara tiishkaada, baradhadan maxaan ku dhahaa baastamirka ku shub. Wax yar saliidda markay ka horto waa jibsi qaleel waayaba Soomaa. Midda qoyana saliidda ku raagtaa, midaan saliidda ma ku raagayso. Markay ku leerato waxaad ku shubtaa tiishkii iyo saxankii meesha ku yaalay. aad ayay baradhadaada u qalanaa doontaa insha Allah. baradho qalalan oo gaduudan ay noqonaysaa insha Allah. Stepka afaraad waxaan ku xiji doonaa basashii gaduudneed insha Allah. halkan waxaan ku haystaa 3 xabo oo basal waaweyn ah. aniga qof walba wixii ku filan ayuu sameysan karaa. waa kana basashan waa soo dubayaa. bariiski waa kana wax yar oo food color ayaan ku dar waa ujeedin. waan soo huurinayaa. markuu soo huuro oo aan guraayo oo aan diyaariyo oo aan isku soo laaban doonaa walaalahey dhammaantiin. food color 3 nooc ayaan ku soo daray. waan huurinayaa. markaan huuriyo oo bacdeen ayaan isku soo laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waa kana hilibkan u soo laabtay. furun cooker-ki waan ka furay. furun cooker doo ku yaala marka koowaad aariyada ka bixi. marka labaad fur. haddii asoo aariyada ku jirto xoog isticmaashid wuu kugu foganayaa. waxa laga yaabaa inuu dhibaato ku gaarsiiyo. hilibkeena waa kaas sidaan ayuu ku soo baxay. waxa sameysaa hilibka ha qasin. waa kana sabiibkina wax yar saliid ayaan ku soo labayaa. asxaabteeda waan soo diyaari doonaa marka insha Allah. waa isla arkeynaa sidii uu ku soo baxo. waa kana hilibkeeni lagama sheekay kara dhadhanka iyo quruxda. bariiski waa kana sidaan ayuu ku soo baxay. basashi waa kana, jibsiga waa kana, sabiibki sidoo kale wuu saaran yahay. maasha Allah tabaarakallah. intana baradhadi kale oo jibsiga iyo basashi ayaa iigu jiro. lagama sheekay karay asxaabta. oo ujeedin caadi maaha sheekada. waxaan oo dhiman salaarkii. waa kana salaarkina sidaan ayaan u soo diyaarinay. qajaarkii, barbaroonigii, ansalaatadii, cabitaankii aan meesha ka maqneen, basbaas cagaarkii. ani leegama waayo ka jabno I love you ka jabaahay. waa kana qadadeeni markaan soo diyaarinay sidaan ayay ku soo baxday asxaabteeda. kuwii caafimaad ku cuna Allah naga dhigo insha Allah. hilibka waa kaasa tartiib saas ayuu ugu jarmayaa. waa inaa idin dhadhamiyo waan ku qasbanahay Sooma. qaybta dhadhamiskaani qaybta commentigana adig aad ayuu u bisliyaa hilib. aad ayuu u bisliyaa.